هايا أنا قدي سلام أمد لغوري بريا ناخذ يعني وأنا باركة الدولار أنا ناخذ أنا سحرير أنا نبنا عاريان بس عيبه أسيقي يعني كسي مرقو بمادن أنا قلي أسكت دلاي واكو برينا ويداي المهيجي تركم هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba joogtaan magacaygu waa Cusmaan Cabdalla Cusmaan halkaad naga daawanaysaan waa Garaa TV saaxiibayaal barnaamijkan gaarka waxaan uga hadli doonaa dhacdo murugo iyo maanshareer adduunyo ku reebtay bulshada ku nool gobolkan Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta dhacdadan waxay timid kadib markii aabba Soomaaliyeed wiil yar uu isaga dhalay laguna magacaabayay Cusmaan Ibraahim Cusmaan uu ku gowracay xaafadda Horseed ee isla degmada Tani Jowhar Cusmaan daadiisa waxa la iigu sheegay 13 sano jir ilaa 14 sano jir haddaba Garaa TV waxa uu suura gashay in uu markaa la sheekaysto hooyada dhashay Cusmaan Ibraahim Cusmaan oo isagu lagu gowracay gudaha magaalada Jowhar si bal aan wax badan uga ogaano isla markaana xaqiiqada arintan iyo sida ay u taabatay nooga sheekayso markaas aan aasay jeclaani oo dasleemaani waalidkii u keenay waalidkii gacantooda igu meeray ka waran markii aad isbaranayseen dhaqamadiisa oo kale sidee kula muuqanayeen markaas baranayeen dhaqamadiisa dhan waa fiicnayeen waa nin fiicano iska hagaagsan oo ahay dibna kuma qaban waxaan isku baranay maqaayada nina dhahaa baayacada suubo oo ku taalo magaalada Jowhar kabarka jaadka dhaqankiinii markii aad isguursateen ee aad guriga wada tagteen sidoo ahaa ma qof xanaaq badan oo ahaa ma dagaal iyo fowda idin dhexmari jiray dhaqankiinii dhaqankaani markaan isguursanay awalkii hore waa fiicnaa laakiin jawiga dambe markaan ilmahan dhalay kibir badan iyo xanaaq badan iyo kibir badan oo zaid ah oo xataa isla marna ismid igu siin jiray ayay ahayd way arintaas markay dhacaysay oo kale waalidkii labadiin isu keen daray ma ku wargelin jirtay waa ku wargeli jiray waa kaaga doodan jiray waalidka waxa la dhihi jiray iska dhaaf aabbo nin ilma ka dhali waaye waqdad baha u qaada aabbo ilmaha u sabar ka waran isaga balwad mu isticmaali jiray balwad oo isticmaali jiray laakiin balwad oo magaciisa aad qasida ka bixayso koodii hore kuma arki jirin anay qaadkaas iyo sigaarkaas ka badan kuma arkin intaad isqabtay ha way muddo ayaad wada nooleedeen imisa caruur isku dhasheen waxaan isku dhalnay 5 wiil oo bini'aadan ah 5 caruur isku dhasheen ha way marka dhibaatadan iyo inuu muddada ku siibto goormuu soo bilaabay inta 5 wada dhasheen mise markii midka ugu horeeyay aad dhasheen intaan 5 daad dhalay aad cunuga igu yiriyay asigu soo bilaabay fooda iyo isturubada waa gartay marka tusaale hadda arintaas markii ay dhacday oo kale buuqiniya batay inaad kala tagteen dadka qaar sidaas ay sheegay marka inaad kala tagtaan maxaa u sabab ahay inaan kala tagno waxaa u sabab ahay ninkii hadii ilmo ba aska naxeenin as cayaal ba ka naxeenin as wixii kaastaba as aniga ku xumeen oo leeyahay cayaalka waxaan kaasta ma cunayaan oo ilmeeyay aniga joogna guriyaha oo dugsigiisa asaga dhaqanaa oo saaranayo oo badarkiisa asaga kasanayo oo kana oo yar wax isiineen ku xumeen aniga as ugu wado as igu yeelayo inta tani xamar as tagnay oo xawaad leeyahay gudaha dhaxaadiin oo asaga la iga khaldanaanayo oo markasta asaga ila khaldanaanayo oo raashinkii kan hados oo yiri xataa oo dugsigiisa asaga kasoo agtaana ku cunaa waya marka ilmaha ka waran suu ula dhaqmi jiray ma nin ilmaha garaaco ahaa mise shaaqa ahaa nin ilmaha garaaco oo ilmaha nafta ila lahay ka qaaday kan oo yar ma dhaafi jirin ilmaha iga cadaaway nafta ila lahaana ka wadi halkan hada dhinta hata lagu ku jibi ilmaha asxaa u musuubinin kuwa kala waayo labada kala waayo hubigaas iga ridi ala adiga dartaada oo yeelaas wax kasta in ilmaha ku nacfinin asaan hubiga oo rida daraad laba inaas hubiga iga ridi muslim hormoyka dagaaga igu soo bixi asa xataa Allah maxaa u riday hubiga ilmaha maxaa ka haleeyeen asir anigu waxa uu soo dhaay telefoon soo dhaay ku xumeen adigu kugu wado
ilma hubiga oo shuba sida adiga oo nacfinan kadibna niman mooyka ah soo bixin hubigi markaa asaga lagu xumeeyay lagu ceebeen wuxuu yiri aan waxaan siyaa u waayay amal markaas sheegay markaan taas ka soo gudubno markaad isfurteen kadib ma dhacday inaad dib isugu soo laabataan mise sidaad u kala baxdeen ay ahayd markaan isfurnay kadib sidaan isku furnay oo isku soo laabanan waxaan kala joognaa 5 sano reer kale inta ma yeelatay reer kale yeeshtay waayahay isaga milmihii markii aad kala tagteen kadib ilmaha ma ku soo booqanaayeen ma ku imaan jireen xiriir ma idin dhexmaraa adii ilmahaaga asaga markaan kala tagnay ani asaga kadib ilmahayga anaa watay ilmahayga anaa haastay markay markhaati aan leedahay ilmahayga anaa soo korsaday anaa u qaday anaa u quuday kun shay iguma sii jirin daraad maraan xamar dagaal ku galay oo xamar dagaal ka dhacay oo meeshii anaga deganay madaafici iyo balaaya ka dhacday asaa ilmaha hooyo u soo waday asaga ilmaha saas la daraad inta oo qabsama ilmahayga anaa baaf soo dhaqday oo soo korsaday kuna wiligiis iguma siinan waayahay arrintan hadda keentay in canugan yar uu gacantiisa ku sababsado sidee ku timid waxay ku dhacday inagii daraad markaan aniga xamar aan ku wareeray oo ilmihii cidda waalidkay u soo diray asaa ilmihii mago inta yimideen asiri ilmaha aneetel ani labada biriyaan soo haasanaa ilmihii aleesii sasay xagiisa ilmihii ku mareen ilmihii sasay xagiisa ku mareen ninkii waji kale ila soo baxay wuxuu yiri ilmihii ma arkaysidba ilmaha dajoor imaatid waa ku bireenaaba ilmaha agtaada ba aan ku arko saasay dhahay inigiya marka daraad hooya timid migel lahay asoo rooti suuq gadaa rooti migis soo dhamaaday asoo cunugii hooyo isoo dhaay salaan ugu amaaday markaas cunugii noqday maalintii cunuga salaan ugu amaaday maalinteedii kale asana inta soo mid wato tuulada banaanay gogobanay liir oo sirraadinay cunugii iyo adigaba oo anigana yiri waa ku bireena ma ku arki kari saasay ku dhacday xaafadda inta ka noqday xaafadda tagi hooyadaas oo soo salaami kartay marka celina miya hooyada dad hooyada bood aniga ka celi oo aadi ana hooyada waxa uu wadidaa ogaadibo hooyada inta ku nacfin lahayd waa ku gogoynaa afartiinaan qalooga ku qorantiin afar in waa xagayga jirta kana haystaan bas ilmaha kale xagiisa ku nool yihiin ilaa hadda xagiisa jira ilaa hadda ilmihii farq ma haayo baani ilmaha ilaa hadda farq ma halkaan ka haystay bas aniga oo xamar kale imaaday afarta daadna xagiisan ku tawaayay oo xataa uu yiri afartiinaan qalooga ku sugantiin qaloo intii hooyadin ku anigu nacfin lahayd waa idin bibireena kan magas masha gishtaa nis qalay asoo qalay idan kan maashi fadhiista fadhay wuxuu rabi ilmaha afartooda in salhal masha u gishtaa hal masha u gishto ayaa dhacday ilmihii dhibaatadaas ku dhacday rafaadkaas leeyahay sameeyay in kooyadiis laga celi karo hadaa jirto walaalahayga Soomaaliyeed waxa ay dhigi karaan waa laga celi karaa iyo ma laga celi karaa ilka way dhigi karaanba suunasan waa tahay marka dareenkaada sidoo noqday markii lagu sheegay in dhacdadan ay dhacday aniga markaa seetay oo cishi ilaahay dartiisa iskaga bixi oo isdhahaayo cayaalkii bal cunugii telefoon iga qaaday oo ay hooyo telefoonkan aan ku soo sameeyna oo ay dhahay asaan dhahay cunugii maxaa ku dhahay wareysama isdhahaayo telefoonka anteena ilmaha iga fujiyeen asaa xaafadan walaalkii aan dhahay telefoonka la wactan أنا عايش مركز لي دكودي حافظي ولالكي أكتيسا إرديس مركز لي كجالي أسالي رويل كادي وادنتي وقرع من أنا ورنا أيقا تجي إلا هدا أنيقا مسكحة سيتاي سيكلم ما بشي كريبو إلا هدا واو ككلام أخنا هيبو باركي جوا دليل سيا والفيدي هاي أنا الحياة الكلوس أنا جسمي أفرد هذا أنيقا ليجا دقي أنيقا إبر إلا هدا وقرع سنة أنا وأسوأ هدا لما مسكحة ما بكلا جوك تباني باركيغ waa dan qaday hayga dhinta inag ma diidan ilaa inag hadaabo baastimir leega dhiga xataa raay inagay laga gogooy saddexdii karna walaalkay farku ma haayane way aroortii kaleento hadda xagge ku sugan yihiin aroorta kale ilaa hadda xaggooda ay ku sugan yihiin ana kan bisanka asda saddex aroor ilaa hadda farku ma haayane ana nafteedii asakala baqoo ana nafteedii أكل بقوة ده حوارات قرآن على ساري حال قرآن على ساري أصلا دوا أنا مسك دلني أنا ونفتي كلا بقوة حيال كيجا أو بقوة أنا سومالي ما لقت كديجا أبها سنبو نفتي أول بقوة إني جالس أودن أنا راشي معينه هذا مركا ما دام دبعت هذا صوت أن يكون دعوي
maxaa codsan lahayd أنا waxaan codsan lahay hadday yihiin walaalahayga Soomaaliyeed hooyo cunugeedii salaam imid lagu horbireeyaa noqday ani qof aniga baarkeeda duloolaa noqday ani xariir aniga nafna caariyaan basi aybo asiga aniga kasii murgoowa bamaadan adiga la isku dilay waa ku biranaa way dhahay ilmaheegii tarku mahay walaalahayga Soomaaliyeed ana waxaan jeclaan wax la qabto ninka waxay iska dhiilaadeen hadday dawladnimo oo jirto hadday jirto magaciisii hooyo Soomaaliyeed ahay hadday jirto magaciisii cadaaladnimo aabi Soomaaliyeedii walaalahay aabi magaciisii ki madaxweynahaadii saasaan jeclaa anina wax la qabto anuga meeqsan jiro ahaa anuga 14 jiro waa sanadkii 2003 oo kan hadas galo waa 14 noqonayso waa anigii uu soo horbaxay oo waxa ii baxay ahay anigeyga ilmahayga oo jeclaa ahay anigeyga waa jeclaa baari oo ahay ahlan salaado iyo ahay ilmaha balwad waxa isticmaalaa mi aniga masaakiin aasi ahay aniga codgay cayalkay kalena farqo ma haystaan wata hada isagii waxa la sheegay inuu ku jiro saldhiga booliiska jooga ka waran maadaama uu isaga xiran yahay ma isleedahay cadaalad waa heli doontaa aniga walaalahayga Soomaali waxa ila qabtaan cadaalad inaan helo aniga niidaysan jeclahay haddaynu intaa kaga nimaadno hooyada dhashay wiilkii la gowracay waxaan sidoo kale isku daynay inaan xiriiro la samayno ehelada gacan ku dhiglaha wiilkiisa ku gowracay magaalada Jowhar hayeeshee waxay ka gaabsadeen inay la hadlaan qalabka warbaahinta iyaga oo sheegay in mashquul kale ay ku jiraan oo xilligan aysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arinta dhacday ugu dambeyntii taliyaha saldhigga booliiska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaan kula kulmay xafiiskiisa waxaan wax ka weydiiyey sida ay ugu suura gashay in ninkan oo la sheegay la soo qabtay kuna jiro saldhigga booliiska ee degmada Jowhar wallahi masiibo dhacday arintaasu arin oo nugu cusubay aheeday Jowhar waxa ka dhacay mar dhow maalmo dhaweeda habeen odayga maqribada camal nin oo oday ahaa wiilkiisa ku dilay ونقانا sabab uu dilay ilaa hadda baaris ay ku socotaa kulli waana maxkamadaha oo qosaysan waa la wadagnay ilaahay ka toogayna taasoo kale inuu ilaahay noo soo naqin ninka markuu ninka dilay waa baxsay wuxuu aadiyay adiga degmada Jowhar soon kamida oo la yiraahdo tuulada halgan adiga ma ka helin anagana waa daba galnay waana soo helnay ilaa alxamdulillaah waa nuu guulay haddana waa xiran yahay ani cid ay khusayso maxkamada ay khusaysan la wadagnay marka insha Allah asigana arintiisa wax badan waa ka hadalnay haddana isdiis saldhigu ku xiran yahay wax yaani baarata barbaleen oo kala jiran ma jiro dhacdadan waxay qayb ka tahay dhacdooyinka sanadihii u dambeeyay ku soo kordhaya koonfurta dalkeena Soomaaliya iyada oo bulshada ku nool deegaanada dalkan Soomaaliya ay si weyn markaasi uga argagaxeen arrimaha foosha xun ee ka dhacaya qayb ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka oo aad ka daawanayseen Gra TV anigoo Cusmaan Cabdalle ayaa idin la socodsiinayay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayuuna barnaamijka toos idinkaga imaanayay intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo